السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada waxaan arki doonaa qaabka loo isticmaalo sahan online waa application sarif ah sarifkaas oo ah Perfectmoney iyo EVC Plus labadaas lacag ayuu kala sarfaa fadlan haduusan ku dagsaneen qaabka koowaad aan ku soo sheegaynay soo fiirso insha Allah la soo deg application-ka linkigiis mar walba waxa laga helaa Facebook page-ka ama Telegram-ka ama Play Store-ka insha Allah ugu horeyn waa gali doonaa sahan online marka sidaan dhahno haduusan application-ka aadan hore iskaga diiwaan gelinin fadlan ku dhufo registration now hadaa iskaga diiwaan gelis hore oo kaliya waxa laga baahan yahay inaad gmail-ka iyo password-ka halkan gelisid anaga isma diiwaan gelin hadda is diiwaan gelin doonaa insha Allah registration now ku dhufanayna halka ugu sareeyo waxa gelin doonaa magacayna oo dhameystiran magacayga oo dhameystiran waxa weeyaan Nur Ali Abdi numberkayga fadlan mar walba numberkaaga saxan halkaas gali emailkayga waxa weeye mar walba emailkaaga iyo numberkaaga iska sax waxa qasab ah hadaadan email iyo maxaa la dhahaa iyo gmail qaldan iyo number qaldan aad gelisid eladooyin waxba ku qabsan doonaa soo laakiin hadhow waxaad weyn doontaa qaab aad passwordkaaga iyo userkaaga ku soo xasuusid fadlan mar walba ku dadaal inaad number saxan iyo emailkaaga saxan aad gelisid waxa ku xigi doona inaan gelino passwordkeena passwordkaaga oo emailka qasab ma ahan password cusub iska sameyso anad passwordkayga cusub waxaan ku sameyn doonaa insha Allah password cusub waan sameysan doonaa halkaan ka bood halkaan aad ka boodaysaa iska dhaaf halkaan agree tick star ugu dambeyntii sign up ayaad leedahay wuxuu leeyahay emailkan hore ayaa iskaga diiwaan geliyay hore emailkan iskaga diiwaan geliyay waxaan sameynaa email cusub aan sameysanayaa haddaad emailkaaga hore iskaga diiwaan gelisay fadlan mar walba wuxuu ku weydiinayaa email cusub iska ilaali arrintan hadda already uu iga diiday email cusub ayaan gelinayaa emailkayga cusub waa ka emailkan adana isticmaala dalla 10 okay san abayaan leedahay marka sorry numberkan uu iga diiday ayadana waxa sameysaa number cusub gali soo numberkan hore hada u isticmaashay oo dabcan isla application-ka mar hore hada isku diiwaan gelisay ayadana uu ka diidi doona number kale tan gelinaya aan leeyahay soo sign up aan leeyahay markaas automatically ugu dambeyntii uu ii soo kacay fadlan mar walba iska ilaaliya number hore hada iskaga diiwaan gelisay uu diidi doonaa email hore hada iskaga diiwaan gelisay uu diidi doonaa mar walba waxa laga rabaa email cusub iyo maxaa la dhahaa iyo number cusub ugu dambeyntii waa soo galnay application-ka sahan online waxaan guda gali doonaa qaabka loo isticmaalo application-ka wuxuu kala baxaa laba nooc oo ah lacag dhigasho ama lacag la bixid lacag dhigashada waa halkan lacag la bixidana waa halkan okay maxaa rabnaa marka lacagtina ka soo dhigano halkaan rabnaa lacagtina ka soo dhigano oo ah lacag EVC Plus ugu horeyn ayada ku dhufan doontaa waxaad dooran doontaa halkan select payment waxaad ka sii dooran doontaa EVC ana hadda lacagteeda waxaan rabaa inaad ka soo dhigto EVC ka soo dhigan kartaa Perfect ka soo dhigan kartaa sahal ama telesom inta doonto lacagta waa ka soo dhigan kartaa aniga hadda lacagteeda waxay ku jirtaa EVC-ga process alle halka ugu sareyso mar walba waxa gelinaysaa iska ilaali fadlan waxa akhriya horta marka hore fadlan ku qor numberka aad lacagta ka soo diraysid mar walba halkaan waxaad ku qoraysaa numberka lacagta aad ka soo diraysid aniga hadda numberka lacagta ka soo diray waxa weeyaan 624244 okay halkaan hoose waxa gelin doontaa numberka lacagta aad diraysid $1 aan diranaya aniga process payment okay dir lacagta ku dhufo marka halkaan ku sii dhufanaysa haduu ku soo baxay phone okay automatically wuxuu keenay akoonka lacagta lagu shubi lahay call aan leenahay halkan hal iska geli halkan waxa gelinaynaa pinkeena
automatic waxaana la dhahay sahan ayaad ku shubtay $1. okay noogu celi application keena iska xirdhe marka halkan ayaad ku dhufan doontaa insha Allah. okay lacagta wuu inoo keenay waan kusoo shubanay $1 waa kana Islam bangi ayaa liiga soo shubay waa kana lacagta waa soo dhigtay